dhawaada wararkii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub xaaladda magaalada Boorama waxaan qaybtan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee magaalada Boorama kadib dibadbaxyadii shalay ka dhacay xaaladda magaalada Boorama maanta waa sidee dhaqdhaqaaqyo dhalinyaradu ay sameynayaan iyo sidoo kale ciidamo lagu soo bandhigay dalalka dariska oo la sheegay inay qayb ka noqon doonaan xoreynta deegaanada Awdal State ee laga xoreynayo dulmi wadayaasha Muuse Biixi uu hogaaminayo ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa iyo halkan lagu soo bandhigayba waxaan dhinaca kale iyadana dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xildhibaan Maxamed Abiib oo maalintii saddexaad gacanta ugu jira ciidamo ka amar qaata taliska Muuse Biixi haddaba xildhibaan Maxamed Abiib xaaladiisu waa sidee maxaa xoga oo laga hayaa halkeese ku xidhan yahay iyadana waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale eegi doonaa imaashihii maanta Muuse Biixi uu imaaday magaalada Gabiley markuu soo galayay sidan ayuu ku soo galay haddaba maxay tahay ujeedada laga leeyahay orodka magaalada lagu soo galayo maxay tahay ujeedadeeda iyadana ujeedo siyaasadeed oo lagu duugayo dulmi iyo tacadiyooyin iyo dhibaato iyo fashil xukuumadda ku dhacay oo ay samaysay ayaan iyadana ku dul istaagi doonaa dhinaca kale xuduudaha ciidamada SSC Khaatumo iyo kuwa argagixisada SRM iyadana mid iyo labo ayaan ka soo qaadan doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay magaalada Boorama shalay waxaan ogsoonayn inay dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dooni mayna dawlad isaaqa dooni mayna dawlad isaaqa dooni mayna dawlad isaaqa dooni mayna dawlad isaaqa waraana ma ku dhiman caadi ma ahaba dooni mayna dawlad isaaqa bay shalay to halku dhigu ahaa dibadbax xoogan baa ka dhacay haddaba maanta xaalku waa sidee dibadbixii ma hal maalin buu ku ekaaday oo godob biirsiintay hal maalin isku soo bixeen oo laab la kacay iska seexdeen ma xog ma hawlo kale galeen muxuu yahay xaalka magaalada waxa weeye Boorama waa sidee xaalkeeda maanta magaalada Boorama maanta ganacsigu shalay ganacsigu waa xidhnaa maanta laakiin ganacsi yar baa furan laakiin waxaa socdo dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo ay yeelanayaan bulshada noocyadeeda kala duwan xalay shir baa dhacay odayaal iyo dhalinyaraba iskugu jira waxaa la isku raacay in la xoojiyo maamulka Awdal State iyo sidii uu waxa weeye ku hirgeli lahaa looga go'i lahaa SRM looga xoroobi lahaa inay waxa weeye la xoojiyaa la isku raacay dalka dibadiisana hadii dalka dibadiisana Soomaaliya korkeedana iyadu shirar ku kala joogsiba ma lahayn waayihii ugu dambeeyay hal doorka iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka way shirahayeen oo hawsha way wadeen hawsha way socotay markii hore way socotay shalay odayaal iskugu jira beelaha Ciise iyo sidoo kale godob biirsi ayaa baaq soo saaray waxayna sheegeen in ciidamadu ay diyaar yihiin ciidamo badan ay diyaar yihiin dalka Djibouti ay diyaar ku yihiin dhawaana ayagana hay hawlgali doonaan Djibouti arinta waayii ugu dambeeyay way soo baxayso Muuse Biixi baa si live wuxuu yiri kuwii dad inoo dhaw walaaladeen baa badnadminayo ciidamo noo soo wato jabhada noo soo wata marka Djibouti de hadalka Muuse Biixi uu yiri iyo xukuumaddiisii waxaan oomeen arag kama aysan jawaabin laakiin arinta waa dhab in ciidamo Awdal State loo tababarayo laakiin ciidamada looma tababaraynin markii hore in isaaq lagula dagaalamo waxa loo tababarayay inay badaha waxa weeye labadaasi beelood ay degaan ay difaacaan baa loo tababarayay laakiin maadaama Muuse Biixi uu iibsaday badoodii iyo barigoodiba oo Ethiopia uu ku wareejiyay iyadoo cidna uusan kala tashanin siyaasiyiintii iyo dadkii waxa weeye laf dhabarta u hayo odayaashahana uu yiri idinka hawleynita lama hawleyn kala tashanaya malaha de waa lagu khasban yahay in ciidamadaas cid walba oo bulshada ku soo xadgudubta ay ka hortagaan hadda marka arinta ugu weyn ilaa waxa weeye waa cadow iyo cadow kalkaalka waa in lagu la dagaalamo oo Muuse Biixi oo ninkii iibiyayba ah oo haddana ku indha adagoo leh waxa weeye 20 baan siinay Ethiopia 20 kilomitir oo badaan siinay Ethiopia bal adu way fiir aqli yaridiisa 20 bad ah ayaan siinay buu leeyahay Ethiopia si kastaba godob biirsi boardku iska jafay beelaha Ciisana de markii hore iyagu godob biirsi bay meel ay ka maran laayeen iyagu hawshoodu meel bay ahayd meel bay ahayd oo hal bayba ku xidhnayd oo ahayd war waxaan looma dul qaadan karee
waxaan wax loo dulqaadan kara meehe wax dhaawacaan samaynayna. laakiin godobiirsigu waa dad iska degan oo waxa weye xoogaa wada mutacalin u badan oo aqoonta soomaaliya ay u badnaayeen oo xoogaa waxa weeye kafiirsi badan oo iska dulqaad badan oo iska qabow oo iska degano wey. laakiin deganaashihii qabowga mararka qaarkood ragga uma fiicne la socdaya, mararka qaarkood ragga uma fiicna. ninka ragga waxaa la rabaa inuu kakanaado oo kulkululaado oo wixii meel ku jira tiisa markuu qaato tug kale hadduu arka xataa uu ku darsan karo ayaa la rabaa uu ku boodo uu yidhaahdo tan aniga iskale oo indhacadays abaa la rabaa. indhacadayska meel baa lagu gaadhaa, ragga waa lagaa leexanaya. soomaaliduna waxay dhahdaa niman shantaadu kaa reebin sharci kaama reebay dhahan. marka sharcigu mar walba africa sharciyada ka jira waa inaad ku lifaaqnaataa weeye. awood iyo indhacadays kale waa in lagu lifaaqo wey, haddaan lagu lifaaqin socon mayso. si kastaba magaalada boorama iyo shacabkii deganaa iyo awdal state iyo salal iyo beelihii wada deganaaba waxaa la isla qaatay inaan lagu sii jiri karin dulmigan iyo dhibaatadan iyo tacadiyadooyinkan lagula kacay shacabkii iyo siyaasiyiinta cid walba aan la dhaafin ee labadan beelood loo jeedo iyo gacan bidaxaynta siyaasadeedba inaan loo dulqaadan karin. sidaa wada ogsoon tihiinba somalilan gudaheeda markii la yidhahdo laamiye badan bay leedahay oo la sameeyey. laami wajaaluu ka baxaa, hargeysuu tagaa, ku kale hargeysu ka baxaa, berberu aadaa, ku kale waxa weye hargeysu ka baxaa wuxuu aadaa meesha la yidhahdo burcu aadaa, ku kala baxa waxa weye gabiley buu aadaa. laamiyada intaa dhan ee gudaha somalilan laga sameeyey kuwo kaloo fara badanba waxba lagama siinin reerkan la yidhaahdo godobiirsi iyo ciise deegaanadooda waxba lagama samaynin. hal laami lagama samaynin, hal laami waa hal laami deegaankooda. mid intuu berbere kasoo baxay saa usoo socdo kor soo marayo waxa weeye la rabay inuu kasoo dhaco awdal meesha la yidhaha boorama inuu kasoo dhaco. markuu boorama kusoo dhow yahay oo uu jiro 50 kilomitr baa la leexiyo wajaalaa lagu leexiyey, halkaasaa lagu leexiyey. marka waa gacan bidixaynta waa nooc ka mid a gumaysi gacan bidixaysiisan wey. la gumaystaha qaar baaba waxa weeye wax qabta oo deegaanku gumaystay wax ka qabta. waa gumaysi dadban oo dhinac walba taabanaya wey, dhinac walba taabanaya. odayaashii waxaa la isku raacay wariya xaal inaan waxaan lagu sii jiri karin. dalka qurba joogteeda dee dalka dibadiisana weligoodba iyagu qaylada way wadeene kuwa gudaha ay kari lahaayeen, kuwa gudaha ayay kari lahayen. kuwa gudahana dee xildhibaan maxamed abi markii la afduubtay cali maxaa inoo yaalla ninkii xasaanada laabaad intii la afduubtay uu waddada u afduuban yahay oo qabiil waxa weeye la yidhaahdo isaaq ay afduubteen maxaa inoo yaalla baa la yidhi. arrintaas baa hadda taagan. magaalada boorama gudaheeda kulamo ayaa ka socda oo ay yeelanayaan dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta waxa weye ka aragti duwan muuse biixi iyo sidoo kaleeto dhalinyaro iyadana waxaa jirta duleedka magaalada u baxday oo buurta daalo dhankeeda intay u baxday iyadana halkaas ku diyaar garowdayba iyadana jirta oo qorsheynaysa sidii ay weerar usoo qaadi lahaayeen. 400 oo dhalinyaro ah ayaa duleedka magaalada boorama ku baxday oo aad weliba xukuumadda muuse biixi ay uga cabsi qabaan. dhanka kaleeto qurba joogta iyo dalka dibadiisana iyadana kulamaha ka socdo dee weligoodba iyagu kuwaasi wayba kasoo horjeedeen dadka dalka dibadiisa ku maqan hanaankan iyo waxa weye kasi mid ahaanshaha beelaha isaaq waxa weeye maamulkooda ayagu wayba kasoo horjeedeenba oo weligoodba way kasoo horjeedeen. iyadana waynu eegi doonaa wixii kasoo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. dhinaca kaleeto xildhibaan maxamed abiib 3 maalin maanta la 3 jaan iyo cidhib iyo meel lagu hayo war looma hayo. in la afduubay, jeelka la geeyey, jeelka laga saartay, maqribkii lala baxay, meel kale la geystay baadada ugu wartamaysay. ilaa iyo hadda meeluu joogo xildhibaan maxamed abiib cid og ma jirto. siyaasiyiintii, waxgaradkii, aqoon-yahankii, faamiligiisii, nin walboo isqaaday oo isdhigay meel lagu hayo waa waayey. waxa uu looga baxay xildhibaan maxamed abiib baaritaan baa ku socdo. haddii uu dambiilo noqdona waa la waxa weye maxkamadda la keeni. hadduun dambiilo noqonina waa la soo daynayaa. maxay uga gol leeyihiin? waxay uga gol leeyihiin doorashadan hadda waxbaba ka dhimanayn inay iska hayaan bay rabaan, ilaan dambi laguma hayo. xasaanadka qaadkiina xildhibaanadii waa diideen oo golaha wakiiladii waa diideen oo isagay u codeeyeen inaan xilka laga qaadi karin. waxay rabaan marka inay halkaa iskaga hayan. ninkuna waa nin saamayn badan. codka gobolka awdalla meeshuu dhahaa war halkaasuu diraay markuu yidhaahdo halkii bay ku didayaan, shacabka oo ku shubayaan. muuse biixi wuxuu rabaa marka inuu halkaa ku hayo oo ku ciqaabo, ama ha dhinto ama ha noolaade halkaa inuu ku ciqaabo ayuu doonayaa. xildhibaan maxamed abiibna xogtiisu waa sidaa. waynu eegi doonaa daawadayaal wixii kasoo kordho muuqaaladana dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa.